السلام الله عليكم سودو هذا عجائب 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 ما doonaysaa maalin walba inaad hesho war xaqiiq ah ma doonaysaa maalin walba in ciyaaraha qabiirir wariye kun shiqul bari wal bahri aad daawato waliba aan ku sheego xaqiiqda rasmiga ah ee jirta ma doonaysaa in aad ogaato wax walba oo ciyaaraha ku saabsan mala socota Man United ay aaday Gazaido mala socota Man United inay aaday Gazaido sidoo kale wacad ay ku martay United-ka inay la wareegayso Chelsea albaabka loogu soo garaacay kadib baacsigii Mount Man United qorshe la yaab leh oo gacan adeeg ku jiro ayaa la soo baxday sidoo kale wada degdegaana waa soo baxayo kooxda lagu magacaabay City waxay la wareegtay ciyaariyaankii Guardiola magaciisa u eka oo la dhahayay Josko Gabadiol warar kale waa idin hayaa oo dhinaca ku saabsan Declan Rice ah warka ma wada maqalnay dhigta ma ii wada siiseen muuqaalkan iga sheergareeya bahda sportiga la hadlaya in siyaasadda ma markaasaan dhahayo siyaasadda inta badan waan ka falankooda laakiin sportiga waqti ay ga soo baxay walaalkay wallahi abo waqti badan ay ga soo baxay waan daawadaa waa la socdaa wararka ku saabsan siyaasadda xanuun weeyaan muuqaalkan iga sheergareeya bahda sportiga meel walba idin ka waalayay shaqal bari wal bahri ah iga sheergareeya la gareeya muuqaalkan meel walba gaarsiin ila joog ila dhamaadka muuqaalkan warka degdeg ku hormaraya marka koowaad waxa lagu soo waramayaa ninka lagu magacaabo Josko Gabadiol in City ay heshiiska shakhsiga ah la gaartay waxa daabacay sidaas wariyaha caanka ah Fabrizio Romano shabakadaha Metro iyo sidoo kale shabakada waaweyn sidoo kalena waxa jira in kooxda RB Lisbon xidigan Croatia u dhashay waxay ku doonaysaa 100 laakiin hal sano qandaraaskiisa ka haray qamaarta malaha waxa la aaminsan yahay in ay lacag yar oo 100 ka yar ay ku gadan doonaan maxay noqon doontaa 50 milyan 60 70 ma sheegi karno laakiin way soo bixi doonaan muhiimadda hadaad aragto ciyaariyaan waxa waaye waa in aad marka koowaad heshiiska shakhsiga aad la gaarto ciyaariyaanka wax walba oo kale way ku fudaanayaan ciyaaryaanka marka qanciso City qorshaheeda waa City sidoo kalena arimo dhinaca financial fair play in lagu haysto waa ogtihiin way is ilaalinaysaa xitaa jeebka xitaa lacag ma gelinayso awal shaxshaxa leedahay jirjirta ma jirta hadda mishaarkaada intaas uu noqon doona iyo balanqaadyo kale oo ay ku jirto Pep Guardiola loolama imaado maxallahay war aan been ahayn macnaheedu la abaatay taasi meel ku qorto warka degdeg ah Gazaido United-ka ka waran bal wararka marka iyadu haatan laga sheegayo sax weeyaan shabakada badan qoraya wargeysyo badan qoraya ciyaaryaankaas waa ciyaariyaan raacsha badan laakiin waxa la yaabanahay United-ka lambarka 10aad bay baahi u qabtay lambarka 6aad maxay u aaday waa laga yaabaa in ay laba lix dheelaan oo United difaaca ay badsadaan sanadka dambe ay noqdaan laba lix iyo hal ota oo Bruno ah oo jeesha shaqadiisii qabsada kooxdaas haday labadaas ku galaan Gazaido inikay dhahayaan maxallahayay iyo sidoo kale Casemiro meeshaas billahi alayhi waa isku dhamaatay meeshaas waa jiqay noqotay United-kana hal midan ku cadeynaa oo ku sheega United-ka waxa lagu yaqaanaa oo lagu aqoon jiray hadda alaabtii Arsenal bilowday dalab ma gudbis koowaad haye ciyaaryaanka meeqa ku labtaa 95 ama 100 okay waa bixinay leeyahay boorsadii banaankeena ayaan buutaan qaado laakiin gorgortan bilaabeen laakiin markay sax wax ugu baahan yihiin way gadanayaan United-ka ka shakin inta noosa United-ka ka shakin shakiyuusan ka galin nimanka kasiiday aadeen Mountain gabi ahaanba waa isaga baxeen Chelsea hadda waxay leedahay war waa idin bariyaya war kaalay qaata war lacagta aan diidnay maxay ahayd bay ku hayaan warkaasi iyo warkii xigay meega haysaan muuqaalkana follow dhaha page-ka mar walba
maalin walba arimaha ciyaaraha ku saabsan waa daawan doontaan hadduu Allah awoodi ra'yi ka noqdo muuqaalkan iga like gareeya sidoo kale Declan Rice intuu ku biiri doona Arsenal mise Manchester City int walba oo ciyaaraha ka falanqoota shalay iyo maantay horta mid ogaada shalay maanta inta badan cadaanka meelihii loogu talagalay aadaan ciyalka xaafada afkooda kula hadlaya meelihii loogu talagalay aadaan marka way adag tahay inaad hesho xog ku saabsan wararka suuqa hal nina heegan u ah waa Fabrizio Romano heegan u ah kuwii kale ee iyagana Fabrizio Romano ka darnaa waa jijifan xoogaa waxay u shaqeeyaan Sky-ga kulli fasax weeyaan marka way adag tahay maanta in macluumaad la helo laakiin macluumaadka todobaadyadii hore dalabkii City ay bixisay waxyaabihii marka la babar dhigo waxa socda yaryaankaas Rice lagu magacaabo boqolkiiba 95 dadka ciyaaraha falqay waxay leeyihiin waxa uu ku biirayaa kooxda lagu magacaabo Arsenal waxay u sameeyeen waxa la hadlay oo qadka taleefanka kula xiriiray Mikel Arteta sidoo kale waxa isaguna marka xigay in ay doonayaan lacag walba inay bixiyaan Arsenal dalabka saddexaad ee Arsenal maxaad rabtaan waaye macnaha waa kala baxnaa waa City ma doonayso in 100 milyan ay Declan Rice ka bixiyaan dalabkii la filayay inay gudbiyaan waxa lagu qiyaasay 75 milyan lagu daray 15 milyan waa dalab oo horay Arsenal looga soo diiday Declan Rice warkiisa waa cadeeyay waxa uu leeyahay waxaan doonayaa in Arsenal ku biiro Arsenal iyo West Ham ay xaajada dhaxtala loolankaasi halkaasi ku dambeeya meela faanteen mise ilama fahmin hadii aad marka xaqiiq aad maleynaynin bax arinka soo raadi luqadda Ingiriiska si fiican u baro soo raadi markaas waad ogaanaysaa meeshan taageernimo ugu hadli doono aniga kula hadlayo waxaan taageeraa oo aan ku sheegayaa inaan taageero been haygo imaanin kooxda Arsenal laakiin kooxaha cida ku nuurayso waan gorfeen doonaa aqoonta kubadda cagta aan u leenahayna war bugliyan ka soo bilaawna baasha waa sheegaynaa sidoo kale Timber isagana waxa laga yaabaa in Isniinta ay Arsenal ku dhawaaqaan ama Talaadada ciyaaryaankaas markaan shabakado badan soo fiiriyay wariyaal badan oo u dhow ka shaqeeya TV-gada sportiga ka faalooda ee dalka Holland markaan eegay waxyaabaha ay soo qorayaan ciyaaryaankaas heshiiskiisa 45 milyan plus addons ay ku dhamaaday ana lacagtii ay ku doonayso kooxda Ajax isagu uu ku qancay mashruuca kooxda Arsenal tan haagna warkiisa waa cadaystay layma gaadayo taagan sanadkan inkastoo dadku ay la yaabihiin ninkan lambarka 10aad u baahnay maxaa waa kasiirahan hadana iyo labadan 6 banuun tikitakan sugaynay difaac munoo gali doona iyadana waa su'aal la isweydiinaya dadka commentiga ka bixiya aragtidiina la gareeya muuqaalkan group walba gaarsiya Maxamed Ibrahim Karaam wuxuu idin leeyahay soo dhawaada marhaban bikum inta soo man waxaan leeyahay Ramadaan Mubaarak inta kale ee sunneen ee maalinka Carafa suganaya waxaan leeyahay idinkuna waxa weeyaan waxaan Ilaahay idinkaga baryaa inaan maalinkaas si toos ah u wada gaarno soo kale halkaan ka soo wada muuqano muuqaalkan iga la gareeya follow markaasi si oo waxay tahay farxad dhiirigelin iyo soo dhaweyn maalin walba wada doonaa qoraal habarteeday ka tahay muuqaal idinku iimaanaya ama cod maxaa yeelay waxaad ku fahmaysaa qoraal waa aragtay darbi weeyaan walaal marka waxa laga yaabaa xafiis inaad ku jirto wixii aad doonayso xaqiiqdeeda ana ku ahay iyo kalsoono trust me ee sheegay muuqaalka la garay meel walba gaarsiyo bilaa tawfiiq